waxaad carabowday arinta Shiinaha ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed ka hor hadalkiisa waxa uu ka soo laabtay safar uu kaga yimid caasimada wadanka Shiinaha ee Beijing wuxuu booqday sidoo kale dekada ku yaala isla wadanka Shiinaha iskaashi dhow ayay sheegeen inay yeelan doonaan wadanka Shiinaha iyagoo kordhiyay heerka uu taagan yahay xiriirka ama iskaashiga labada wadan tusaale ahaan afka qalaad waxay ku sheegeen all weather strategic partnership ayaabay sameynayaan ama iskaashi nooc kaste iyo dhan kasto uu yahayba ah marka aad eegto arinta uu ka hadlay isla socdaalkiisii Shiinaha arimaha geopoliticska ama geeska Afrika ka taagan aynu ognahay bal arimaha sidee xiriir u leeyihiin ma la is oran karaa waxay qayb ka tahay hirdanka dawladaha waaweyn ee dunida ay ugu jiraan gobolkan iyo sidii ay u kala galaangalkiisa u kala heli lahaayeen horta hirdanka geopoliticska Horn of Africa ka jira qayb libaax leh way ka tahay Ethiopia Shiinuhu inuu saameyn weyn ku yeesho gobolkan ayuu u dan leeyahay bayskiisa military ee ugu horeeyay dunida uu ka furana Djibouti buu soo dhigay taasi waxay cadeynaysaa meeshan sida ay muhiim ugu tahay marinkan gacankan cadmeed iyo Red Sea-gu meesha iska galaan ay Djibouti ku taalo muhiimad gaar ah strategically bay leedahay oo dhaqaalaha iyo shidaalka ugu badan 70% shidaalka dunida halkaas soo maray Asia iyo loo wado iyo Australia loo wado shaqaala qalabkan Shiinuhu iyo economigan Shiinuhu ku dhisan yahay Europe iyo Mareykan la geenayna route-kaas umara marka gobolku muhiimad gaar ah u leeyahay dawladaha waaweyn oo taasi waxay cadeyn kuugu muujinaysaa sida ay dawladihii waaweyn oo dhan ay saldhig military uga furteen dawladda Djibouti Ethiopia ma dealer bay ka noqon kartaa oo waxay rabtaa inay ku qanciso Shiinaha in uu maalgeliyo dekada Saylac مثلا haddii uu ku qanciyo Somaliland iyo dawladda Shiinaha xiriir fiican ma ka dhaxeeya taasi waad ka wada warqabtaan guud ahaan dawladda Somaliland intee in leeg bay diyaar u tahay in ay si nabdoon oo maalgashi shisheeye loo keeno oo lagu hormariyo dekadaheeda intee leeg bay diyaar u tahay waxa ka jawaabi doona kulli mas'uuliyiinta dawladda waa su'aal laakiin taagan oo shacabka dhaxaysa taala laakiin waxa muuqda hadda inta muuqata waxa weeye mar haddii aan heshiis la nahay Taiwan Shiinaha sidaynu heshiis oo noqonayno aynaan wali ka fikirin ama aan dadaal laga muujinin oo Shiinaha aynu kula heshiis kula noqono mar layba waxay noqonaysaa inaga Shiinaha in la inoo dhaxay oo third party inoo dhaxay hadduu taa ka faa'iideysanay marka Abiy Ahmed dawaaynay dawladdu marka policy la timaado ay ku qancinayso dawladda Shiinuhu inay projectiyeyntan ka badan oo ka faa'iido badan ay noo keento aanay ahayn kaliya mid Ethiopia qoray ka horta wadamadan gobolka aynu ka hadlayno marka Ethiopia laga yimaado saddexdan Soomaalidu Itaalo macnaale male oo cid iskaga celin karaan oo cid ugu yeeran karaan Djibouti iyo Somaliland iyo Soomaaliya in kala laadno Eritrea xogaa Itaalo leh laakiin inagu durbaanka dagaalka baddu soo durbaan adduunyada la kala safin geeska Afrika waxyaabaha muhiimka ah laakiin ay tahay inuu ka fikiro waxa kamida mar hadaa tahay gobolku yahay asymmetric yahay si markii doctor sharaxay dawladda Itaal weyn leh iyo dawladda Itaal yar leh oo xiriirku aanu noqon karin ku is celin karaan dawladaha Itaalka yar waxa laga rabaa inay aqbalaan xuduudda iyo weynida dawladda Itaal kale waan kugu ixtiraamayna adigu powerful tahay Ethiopia kulama tartansanin dawladda Itaal kalena waxa laga rabaa in aqbasho danaha dawladaha Itaalka yar oo aanay ku faragelin labadaas hadday yimaadaan way balance garooba heshiisku laakiin haddii kale waxay imanaysaa colaad iyo safgalin laakiin inaga Soomaaliland ahaan choiceska aynu sameynayna u baahan oo su'aashaada qayb ka noqonaysa inuu ka taxadaro maxay choiceska aynu sameynayna uga taxadarayna inagu Taiwan baynu la saaxiibnay Taiwan iyo China way sariinayaan China Afrika hadda Itaal badan bay ku leedahay Ethiopia siba maalgelin badan bay ku samaysaa Ethiopia waxay ka mid noqotay loo ogolaaday inay ka mid noqoto BRICS ururka la yiraahdo ay China iyo Ruushka iyo ku jiraan oo ugu Itaal weyn tahay maanta China kolka China oo ka caraysiisay oo statementka dawladda ka soo baxay loo sanadka hodna waa very aggressive waxay ku fadhidaa dhowr stopka albaabkaaga hortiisa soo fadhiisatay halkan dhawo jaalay fadhidaa kolka adigu marka Taiwan xiriirka la sameeyay su'aalaha ma isweydiiso ma ku xisaabtanta danahaaga ma ka dhex aragtay
ma ku tala gasho hadda laftigeeda tala ma kaaga taala Ethiopia iyo China is ag fadhiya ee halkan dhow fadhiya ee danahooda ka ilaashanay waxaad ka yeelay su'aalahaas marka inaga ayaan foreign policy-geenu siyaasaddeena arrimaha dibadda ahayn tuu ku salaysan aragti oo analyze garaynaysa dawladaha adduunka is haya isla markaana ku xisaabtamaysa Itaaliyarideeda ilaa Itaaliyaridaada inaad ku xisaabtantaa la timaada xirfadii Itaaliyaridaada aad kulka adduunka ku navigate garayn lahayd kaga gudbilay marka inaga choices khaldan sameynayna waxaan sameynayna ikhtiyaar iyo go'aano khaldan oo aan dan wahayn sidaynu geeska Afrika nabad ugu noolaan lahayd u dambaysan ku soo koobaya waxa weeye Ethiopia markay isbedeshay 2015 iyo 16 qoladii haysan jirtay kursiga laga qaaday Abiy Ahmed Ethiopia way isbedeshay macnaheedu waxa weeye geeska Afrika isbedelay inaga siyaasiyiinteena xukuumaddu markii doodaasi soo baxday leeyahay Ethiopia way isbedeshay maxaynu sameynaa way dafireen waxaan geeska Afrika isma bedelin Ethiopia isbedesho wax dana iyo wax diyaar garooba lagama yeelan dabadeedna inagu halkii hore inta taaganahay meeshii TPLF joogi jirtay inay ilaalin jirtay saaxiibka la ahay ayaa fikirkeenu taagan yahay Ethiopia hore ma aha way isbedeshay danaheedii baa isbedeshay gudaheedii baa more democratic noqday khilaafaadkii baa power sharing baa imanaya marka dadku dimuqraadi noqdo awoodihii baa iscishanaya danihii baa fara badanaya inagina diyaar garow kuma jiro marka inaga siyaasaddeena arrimaha dibadda proactive ma ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121